aad baa u mahadsantahay shirka golaha wadatashiga qaran madaxda Soomaalida oo shir gudoominaya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble wuxuu marayaa meel gabagaba ah maanta waxay u ahayd maalintii afraad madaxdu si hoose ay wada hadlayeen oo kulabkooda albaabada u xirnaa iyaga gaara madaxweynaha shanta madaxweyne dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maaragtay shirka kula jiray ra'iisul wasaaraha oo halka maaragtay waxay ku faqayeen arrimaha laga heshiinaya doorashada ku saabsan horay maaragtay ismaandhaafkii uga jiray marka sida muuqata wax badan oo horumar la sameeyay dhammaan qodobadii maaragtay ay ka wada hadlayeen iyo sida hadda ay wax u socdaan markay madaxdu ay noo sharaxeen waxay sheegeen inay gabagaba tahay lana filayo maaragtay maalinta Khamiista haddii ay baydmo in waxaa la isla dhexmariyay in la isku haysto sida loo qaybsanayo xubnaha gobolada waqooyi uga qaybgelaya doorashada Soomaaliya iyadoo la sheegayo in gudoomiyaha aqalka sare uu ka biyo diiday isagoo la kulmay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya taa maxaad uga sheegi karaysaa adigoo mahadsan dhammaan marka la fiiriyo dhinacyada oo dhan hadda qodobo badan baa jiray waxaa laga hadlayay amniga doorashooyinka waxaa laga hadlayay arrintii gada waxaa laga hadlayay arrimihii gudiyadii waxaas oo dhan madaxdu heshiis ay ka gaareen way wadaan oo qaarkood wali maaragtay dhamaystir yar u dhiman marka mid gaar ay ma qodobada oo dhan baa maaragtay mid loo dul fariisanayay oo laga hadlayay oo laga saaqiday wixii maaragtay caqabadaha ka iman kara marka ra'iisul wasaaruhu xoog buu geliyay waa ogtahay habeenkii xitaa maaragtay marka maalintii laga soo baxo shirka habeenkii ayuu madaxda maaragtay qaarkood kulamo la qaataa marka hadda marka la fiiriyo sidii shalay ay aad bay uga duwan tahay dhammaan cid walbana waxay muujisay maaragtay inay diyaar u tahay hogaamiye maaragtay inay yihiin ay muujiyeen taasna waxay muujinaysaa in hadda heshiiskii horukac laga gaaray oo horumar uu sameeyey maalinta Khamiistana gabagabadii xaflad weyn la qaban doono oo xitaa la filayo in madaxda qaranka ay kasoo qayb gasho halkaas maaragtay bulshada rayidka ay kasoo qayb galaan oo maaragtay madaxdii hore ay kasoo qayb galaan cid walba maaragtay u furnaato lagana wada hadlo maaragtay sidii la isuguna hambaliyay guushaas kasoo baxay shirka oo la filayo maaragtay in la dhamaystiro haddii insha Allah maalinta bariya maaragtay si rasmi ah qalinka ugu wada suugaan maxaa ugu muhiimsan aad nooga sheegi karaysaa gudiyadiiba doorashadii la wareegi doonaa ma doorashadii baa dhaqso u dhacaysa maxaad maaragtay aad Khamiista dhici karayaad war nooga haysaa insha Allah billahi kariim oo war khayr labad ka sheekaysa waxa ugu muhiimsan waxa way tahay in la marka hore qodobadii khilaaf ka jiray la xaliyay sida lagu xaliyay soo bandhigi doonaan waxay sheegi doonaan waqtiga maaragtay doorashada lagu qabanayo timeline-keeda iyo maaragtay waqtiyada loo qorsheeyay waxaas oo dhan baa maaragtay ku cadaanaya marka waxay noqonaysaa in wadanku uu aado doorasho isla markaana uu ku aado waqti mucayin oo la og yahay oo maalin hebel waxaasaa dhacaya maalin hebel waxaasaa dhacay taas ayaana maaragtay ra'iisul wasaaruhu mas'uul ka noqon doonaa gelinteeda isagu maadaama aanu hadda murashax ahayn inta kalena maaragtay hadii waxa bilaabanaya ololayaashii oo haddaba markaad fiiriso markay dadku ay arkeen faalayaasha madaxdii maaragtay murashaxiintii qaarkood baa waxay bilaabeen inay sii bilaabaan loobigoodii ku saabsanaa madaxtinimada marka kulamo gaargaara socda waxaasna waxay muujinayaan heerka maaragtay ama guulaha uu gaaray shirka insha Allah waxaana maaragtay shirka wixii kasoo baxay natiijadiisa rasmiga shaacin doona madaxda marka ay qodobadooda soo saaraan